meedadka ayaa buuxdhaafiyay isbitaalada waxayna la halgamayaan sidii ay ula tacaali lahaayeen dhaawacyada faraha badan. kulan wacan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Falastiin. meedadka ayaa buuxdhaafiyay isbitaalada waxayna la halgamayaan sidii ay ula tacaali lahaayeen dhaawacyada faraha badan ee ka dhacay Deir al-Bala, sida ay la wareedyo caafimaad u xaqiijiyeen telefishinka Al Jazeera. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 36 qof ay ku dhinteen halka 115 kalena ay ku dhaawacmeen guud ahaan deegaanada saacadihii ugu dambeeyay. Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadeeda dhulka ay u diyaarinayaan xerada qaxootiga ee Burej ee ku taal bartamaha Gaza ee Deir al-Bala, iyadoo ay diyaaradaha dagaalkii madaafiicda ay bartilmaameedsanayaan aagaas. Xamaas ayaa sheegtay in aysan aqbali karin heshiis kasta ilaa Israa'iil ay samayso go'aan cad oo ku aadan xabad joojin joogto ah iyo in ay gebi ahaanba ka baxaan Gaza, iyadoo ra'iisul wasaare Netanyahu uu ku celceliyey in dagaalku uu sii socon doono ilaa kooxda la baabi'iyo. dhankooda qaramada midoobay waxay sheegayaan in haddii dagaalku uu sii socdo aan la joojin, in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Gaza ay la kulmi karaan heerka ugu sareysa ee gaajada bartamaha bisha Julaay ee sanadkan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO iyo hay'adda cunnada iyo beeraha FAO. taasi waxay sare u qaadaysaa 677 qof oo ay la soo diristay xaalado heer macluul ah bishii Maaj sanadkan, sida lagu cadeeyay warbixinada xaqabeelka cunnada. warbixinta wadajirka ee WHO iyo FAO ayaa lagu sheegay in gaajada Gaza ay uga sii darayso xanibaado xooggan oo ku waajahan helitaanka gargaarka iyo burburka nidaamka cuntooyinkoodii. dhankooda maamulka biyaha Falastiin ayaa sheegay in Israa'iil ay hoos u dhigtay qiyaastii biyaha daanta galbeed. maamulka ayaa sheegay in biyaha la dhimay ay ku soo aadayso ay imaanayso iyadoo uu xagaaga bilaabanayo, ayna uga sii dari doonto biyayaraanta sanadlaha ee ay la kulmaan bulshooyinka ku nool daanta galbeed. ilaa hadda ugu yaraan 36,586 qof ayaa lagu dilay halka 83,074 kalena lagu dhaawacay dagaalkii Israa'iil ee Gaza ay ku qaadeen tan iyo 7 Oktoobar sanadkii tagay 2023.